فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصة الفضيل بن عياض nin la oran jiray Fudayl ibn Iyad wuxuu ahaa dadka wanaagsan buu kamid ahaa magaalada Samarqand ayuu ku dhashay gobol iyo maarta wuxuu ku soo barbaaray Khuraasaan wuxuu degay magaalada Makka iyada ayuuna ku dhintay markii dambe Fudayl ibn Iyad markiisii hore wuxuu ahaa rajul dadka cabsi geliya oo dadka qutaacu turuqda oo wadooyinka umada u fadhiista oo baarta oo dhul jiifka la yiraahdo oo meelaha dadka ku baarto waxay wataan ka qaata ayuu ahaa aadna waa looga cabsan jiray ibn Asakir ayaa wuxuu leeyahay sababta uu Fudayl ku toobad keenay wuxuu ahaa isagoo oo meesha bahgooyada ah cidlada joogi jiray dadkana cabsi gelin jiray ayaa waxa dhacay ninka sababtaas waxay ahayd gabar jaariyad ah ayuu maaragtay ninkaasi caashiqay uu jeclaa gabadh buu jeclaaday maalin maalmaha kamida ayuu marka habeen iyadoo gabadhu guriga ku jirta buu darbiga soo fantay adawaan iska dhul jiif oo garanaysa darbiga intuu soo fantay baa wuxuu rabay gabadha inuu halka uga dhaco uu guriga uga soo dhaco isagoo oo halkii fananayo darbigii saaran ayaa wuxuu maqlay qiraa'ah aayad la aqrinayo oo ah aayada Ilaahi subhanahu wa ta'ala fi surati al-Hadid aayada 16 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أيضاس ومعنى هذا الشيء ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وردتك أهل إيمان كأه مسلمين تأه مؤمنين تأه سولما جارين حلقي أي الله أتوبت كين لهايين سبحانه حلقي أي أجوكسن لهايين إلهي وحسود دجيه سبحانه وتعالى آيادي مركو مقلي أيو نينكي إسلام مركيبا واستاغي وصولافتي ميل يرأو إسكا ججب أهو ماركتي قشن قب أبو إسكا قلي حالكيبو كجري هبينكي أوجوغي كدبنا وحي شيغيان قصصكو إن فضيل إلهي سبحانه وتعالى بسببته هدايتي سادو أسود دجيو آياتي مقلي لأن الله وحده إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فضيل وطوبت كيني وحونا لدرس حرمك أيو إسكيميد إلى أكرنتو قوليها قاركود وحي لين صببتو وحي أهيد ابن عساكر سودو كالسو قورين إساقو دادكي آذو عبسي قلنا إياه niman baa soo maray isagoo duurka ku jira ayaa waxay maqleen wuxuu maqlay iyagoo dhahaya war caawo in rara oo in Sacuudsiya Fudayl baa meelahan fadhiye ayeenan maartay in qabsanayno inaga qaadanina kadib baa ninkaas wuxuu yiri ma umada guuraynaysan aniga ayay iga baqayaan aniguna iyaga ayaan cabsi gelinayaa aayada markuu maqlayna wuu qayliyay Ilaahi subhanahu wa ta'ala buu u toobad keenay فضيل ابن عياض وحال قلت الماما سيد إبراهيم بن الأشعث أوليه وحوليه ما رأيت أحدا كان خوف الله في صدره أعظم من الفضيل نين فضيل كعب سبضا ما أنا أركن بوليه وحوها مركو الله حصى سبحانه وتعالى إلهي مرك الله حصى واستاج جري مركي مارت الله الشيء وقشوع جري قرآن كهدي إلا أقريه ويكم قنجرتي ولا أركي جري إنه سأيا إلمين جري وأوي جري ننو عاس أيوها آيات داس مركو مقلي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وحال هذا ألم يأني ومشتق من الآن خد أيا لغا سوقات معنونا وحويه الآن توبوا ورحد الله توبت كنا سبحانه الآن توبوا هذه اللحظة الله توبت كنا سبحانه وتعالى ذكر إلهي الله لابته خشوع ده الله لابته إلهي سبحانه وتعالى استغفار أيو أقول لابتي سيدا سنة فضيل ابن عياض يو كتوبت كنا أيها الأحبة